salaad cali jeelle gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiga waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee magaca iyo miisaanka kula gudaha dalka shalay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax saameyn xoog leh ku yeeshay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed marka loo eego mas'uuliyiinta wax ku noqday weerarkaas oo heer maamulka gudoomiyaashiisa degmooyinka iyo madaxdiisa sare ay ka mid yihiin adiga sidee u aragtaa dhibaatadaas dhacday bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin runtii marka ugu horeysa horta waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan u tacsiinayaa dadka muhiimka ah iyo gudoomiyayaasha ahaa oo ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay oo iyaguna la midka ahaa oo waliba oo ugu weynaa gudoomiyaha gobolka inta dhimata waxaan leeyahay ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo samir iyo iimaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan Allah ka siiyo gaar ahaan ahaaladooda khaaska ahaa iyo dawladda Soomaaliya oo si gaar ah ay u khusayso inta dhaawacantana waxaan leeyahay oo gudoomiyo ugu horeeyana ilaahay ha bogsiyo caafimaad degdeg ha siiyo ha ka badbaadiyo runtii waxa markaan tacsida halkaas uga baxo waxaan aad iyo aad u cambaaraynayaa falkaas argagixisanimo oo aad iyo aad si khariban oo cadowtinimo dheeriya ay ku jirto loo soo maleegay runtii aad iyo aad aan u cambaaraynaa marar badanna waan ka hadalnaa arrimahan arrimo la mida oo aad iyo aad aan tusaale uga bixina cambaarayntaas aadka u adag oo argagixisada aan mar walba mataqaanaa ay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ugu geysanayso markaan halkaas uga baxo waxaad ogtahay inaan marar badan ka hadalno waxaana la dhihi karaa runtii arrimahaanu waa arrimo loo baahan yahay in la fahmo argagixisada carabti hore waxay dhihi jirtay xaalal waadi idaa saala dadkan waa dad ku yimaada kadis oo iyaguna mar walba dhaqankooda argagixisaduba waa kedo waxay rabtaa marka in la fahmo mas'uuliyadaasna looga hortagayana waxay u baahan tahay in la fahmo markay carabtu leedahay xaalal waadi idaa saala waxa waaye waadiga carabta waagi hore markii la dego meel waadiya biyo meel dheer ka da'ay qoyska u imaanaya markaasna waa xaaqayaan biyihina waa gudbeen waxba ma anficin dadkina waa laayeen nimankan marka quruurkaasay ku dhisan yihiin waa waadigaas ay ku tilmaameen inuu waadiga xeelay ay ku tilmaameen marka carabtu waxay yiraahdeen waadigi waa xeela biyo keena waa biyihina dadkii meesha deganay ayay baabi'iyeen argagixisadu marka kidadaas ayay ku nooshaa waxaa la rabaa marka in la og yahay waadigu inuu biyo keenayo si looga guuro waxaa la rabaa marka inay nimankan kida ku imaanayaan waa la ogyahay ahlu quruur ay yihiin oo ahlu shar ay yihiin oo ay argagixisan yihiin
waxaa la rabaa marka cidda u xil saaran marka ka hortagooda inay kedadaas inay ku imaanayaan ay ogyihiin jaanis ayna siin habka ay wax u isticmaalayaan muddo badanaa la arkay dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan waa inay garan karaan qofka Soomaaliga oo aan lahayn adkaysiga ama inuu wax iska caabiyo ama aan nimankan aqaanin oo rayidka ahi wuxuu dareemaa haddii la cabsi geliyo la yiraahdo saasaan ku yeelaa haddaadan saas yeelin awaamiirta qofka rayidka waa u nugul yahay waxaa la rabaa marka amniga waa si khaasa ayuu khatartiisa u leeyahay maxaa yeelay amnigu wax dadku ay mataqaanaa fahmi karaan maaha waa nolosha bini aadanka sidaa darteed marka nimankaas waxay u baahan yihiin in lagana hortago goobaha ay joogaanna lagu weeraro marka runtii aad iyo aadaan uga xumahay mar labaad iyo mar saddexaad aniga marka waxaan dhihi lahaa Soomaalida muddo badan ayaa loo sheegay waxa ay yihiin argagixiso waxa inay fahmaana laga rabaa maxaa yeelay jaanis inay ku helaan oo goobti aad wax ka maamulaysa ay yimaadaan inay u suurta gasho aad iyo aad waa arrin laga xumaado waana loo baahan yahay in laga aarguto ayaana loo baahan yahay arrimahaasna waxay u baahan yihiin ka hortag saasaan isleeyahay waana la fahmi karaa laakiin waxay rabtaa in qorshahaas marka horeba laga diyaar garooboon aan saad ay ku soo maraan aysan helin waa tahay qaraxa markii uu dhacay falcelin badan laga bixiyay oo meediyaha ay mariyeen madaxda siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada haddii aan tixraacno hadalladii ugu muhiimsanaa ee la jeediyey waxaa ka mid ah qoraal facebookiisa ku daabacay madaxweynihii hore Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku muujiyey baaq uu u dirayay dhinacyada isku dhibsanaya siyaasadda in ay ogaadaan wax ugu yeeray cadowga in aysan u kala sokayn taas ma laga dhaxbaxsan karaa in qaraxaanu siyaasadaysan runtii adiga shaki kuma jiro in dad ay ka dayayaan nolol siyaasadeed inay dad ka raadinayaan oy argagixisada la macaamilayaan oo argagixisada ay inay wax ku goostaan oo ay mataqaanaa siyaasadoodii guul daraysatay inay jeclaan lahaayeen in inta dowladda Soomaaliya lagu weeqa argagixisada ay halkaas faa'iido siyaasadeed inay dad ka raadayaan shaki kuma jiro laakiin dhagar qabuhu iyan ama argagixisada iyo kuwa la macaamilaya oo ewelna ka bartay inay kuraas ku gaaraan waad ogtaa argagixisada dad baa kuraas ku gaara waxma nooga taaban kartaa dadkaas waxaa ka mid a marka la fiiriyo waxaad ogtaa xilligii maxaakiimta argagixisadu waa iswada hogneen waxaad ogtahay hogaamiyayaasha maxaakiimta iyo kuwan hadda argagixisada ahoo oo ka mid ahaa gudane iyo ilaahay kuuma daraadee dadka dhammaayo qaarkoodna inta soo galeen qaarna weli uu maqan yahay in hadda carabka lagu ballaariyo goobjoogaada da'daas waa joogta maxaakiimaa la isku dhihi jira
waxaa imaanaya marka waadna ogtahay in markaasi dib u heshiisiintii ay ku soo baxeen hogaankii maxaakiimta. waxaa ku muuqda shaki ah in dadkii xagga ka soo baxay ay weli gacan saar dhow la leeyihiin dhinaca kale. waxaaba meesha yaalla dadku koox diimeedyada ku abtirsada noocay doonaan ha ahaadaan oo mar walba mataqaanaa siyaasadda ku jira argagixisadii dugaashadaan maxaa kabar u ah maxay siyaasadda ku damcaayaan waxa ay ku damcaayaan waxaa waaye haddii uu jiro nin argagixisaa oo argagixisadan al-shabaab ay jiraan inaan kursi helo inaan kuraas helo geedka layga geyma kara mar walba waa noola maxaa yeele waa lay baahan yahay anaa fahmaya sida laysaga difaaco anaa fahmaya oo shala la jiri jira waa kaa waaye aragsana waa waxyaabaha weli wax lagu raadinaya soo fahmi maysi laakiin waxay u baahan tahay waxaasoo dhan in nidaam soomaalidii hore lagu raadinayo oo nolosheennii hore iyo dhaqankeennii iyo diinteennii aan ku samatabaxayno oo cad oo gagabad lahayn oo aan lahayn nuglaasho oo xaqa iyo baadilka lagu kala saarayo oo ama xaqi waa kane soo raac ama adiga xaqdarrada raac waxaad ka heshaadna leedahay dadka in la yidhaahay u baahan yihin adwaaga dhahdana ma jirto sidaa darteed marka wax in mataqaanaa xalaalla barqaad cadaa la quutaahe dadka Soomaaliyeed wixii xunna waa inay u arkaan wax xun wixii sanna waa in wax loo arko laakiin maafiyada iyo argagixisada in laga raadiyo siyaasad gacan siinaysa in wax lagu raadsado goobna lagu yimaado waa inay meeshan ka zuushaa geyigan Soomaaliya waa inay ka zuushaa haddii kaasu jirana dhibaatadaana lagu jiraa mar walba waxaa jira qaraxa maalinkuu dhacay ka hor siyaasiyiin ku kulmay magaalada Muqdisho oo qaarkood xasaanad leh oo xildhibaano baarlamaan ka tirsan oo aad u dhaliilayay maamulka gobolka Banaadir uu hormuudka ka yahay duqa Muqdisho injineer Yariso oo hadda dhaawac kuwaas maxaa xiriira oo loogu xaglin karaa weerarkan shalay markaan taas taariikhda dib u galno shalay waxaad ogtahay konsala loo sameeyay dawladii ku meel gaarka aheed oo Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ka ahaa Nuur Cadane ra'iisul wasaaraha ka ahaa waxaad ogtihiin in gobolka Banaadir maamul ka yimiday dadka deegaanka oo konsal ah in dhagaxtuur Maxamed Cusmaan dhagaxtuur ay doorteen dhowr iyo xillidan ay ahaayeen xubnaha baarlamaanka oo xildhibaanadaas ee ka soo jeeday gobolka Banaadir oo ilaa heer Soomaaliyeed ka koobnaa dib u heshiisiintii maxaakiimtii markii lagu madaxnimadii ay qabsatay oo markaas Sheekh Shariif oo madaxweyne noqday oo xildhibaanadii 500 heed la isku diray oo anaguba ka mid ka ahaa isla markii wareegta lagu kala diray councilka dadkii shala ku kala diray oo councilka
baabi'iyey oo nidaamkii gobolka Banaadir uu gaaray kala firdhiye oo yiri looma baahna inay ismaamusho Muqdisho gobolka Banaadir inuu maamul ka jiro aan magacaw ahayn looma baahna dadkii yiri inay maanta u ololeeyaan oo ay yiraahdaan gobolka Banaadir ayaa loo baahan yahay in uu yeesho maqaamkiisii iyo councilkiisii iyo dadkiisu inay ismaamulaan waa mustaxiil maxaa yeelay hadda midaan ka hadlayna midaas ma waa taas waa mid siyaasad ku qotan waxaan soo wadaa marka ooyintu marka waxaa la yiraahdaa orgaga ka weyn mar walba waxaas la karinayo waxay wax oo loo jeeda maahan ujeedadu taas maahane meel kale ayaa loo dan leeyahay laakiin waxaas wax oo dhan waxa iftiimi kara baarista iyo hawshan dawladdu iidaa waxaa laga rabaa inay tiraahdo saan bay wax u dhaceen halkaasay ka timiday noocaasay aheeday waxaas waxaa waaye wax u baahan in si wada jira loo qabto dawladduna ay hor kacdo arrin loo baahan yahay waaye laakiin arrin hadda adiga in warbaahinta ay ku filantaa in qof ka sheego ma ahan marka laakiin waxa muuqata jawiga siyaasadeed oo lagu jiray habeen hore aniga waxaan wacay runtii dad badanaan wacay idoo aan isleeyahay ha laga digtoonaado waxbaa salag leh waa muuqata maxaa yeelay siyaasaddu waa in waxa jira haddii ay meel laga hadlo cid kale meel kale ka hadasho wax la sheego waa inaad adiga la qabsan karto oo adiga ay kuu muuqato waxa ka imaan kara tuhun weyn ayaa marka qof kastoo dareen leh galay laakiin sida wax u dhacayaan iyo meeshay ka imaanayaan waxay leedahay dadka mas'uuliyadda ayaa laga rabaa inay waajibkaas ay gutaan laakiin hadda annagu ma dhihi karno hebelaa ka dambeeyey ama hebelaa ka dambeeyey taasi waxay rabtaa in inta baaris la galo aad og tahay gobolku kaamira uu leeyahay waxaa jirta laynkaas cid kastoo meesha laga soo abaabulay sida loo fududeeyey cidda ma taqaanaa iyo maalin walba waxa dhacaya waxaa laga rabaa dawladda Soomaaliya inay meel ku sheegto oo dadkaas argagixisada la macaamilaya ay banaanka soo dhigto sidii faranfarku oo ciidda banaanka u soo dhigo maxaa yeelay waxaan sidan leeso ma dulhuunaa karo eego ana ku dilo mu'min laba mar good lagama qaniinaa la yiraahdo marka argagixisada waa laga adkaa karaa tilaaba laga qaadi karaa cid gacan saar la lena waa lagu geey karaa waa jidkeeda argagixisada jidkeeda cid soo gashana waa maxaa yeelay telefoonnaa jira oo la iska dhigansado waxaa jira xuuraan oo dad ku shaqo lahaa jira analysis jira qofkan markuu waramayo analysis taa jira maxaa ka muxuu ula jeedaa hadalkan muxuu ula jeedaa qofkaas waxaa loo baahan yahay in lagu shaqeeyo maalmihii dambe warbaahintu hadal haysay warbixin wargeyska New York Times oo wargeysyada ugu afka dheer caalamka ka mid ah uu daabacay uu ku helay macluumaad la xiriira nin ganacsada ah oo xiriir la leh amiirka Qatar oo safiirka Qatar kala hadlaya weerar ka dhacay Boosaaso iyadoo la sheegayo weerarkaas annaga ka dambeeyno imaaradan u waracdeynayna Soomaaliya
waxaan la soconnaa dhaqdhaqaaq Qatar ay ku leedahay Soomaaliya iyo saameynteeda arrimaha dawladaha khaliijka iyo wadamadan Qatar iyo Imaaraadka waxyaabaha lagu eedeeyo la xiriira weerarada kooxaha ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya adiga maxaa kaaga muuqda runta waxaad ogtahay Soomaaliya waxay ku taallaa meel istiraatiiji oo aad u qiimo badan haddii Soomaaliya cagaheeda ku taagtana isku istaagtana hadda waa halkii Afrika ay ka quuda lahayd waxaad garan kartaa marka wadamada Carabta ama kuwa kale oo diriska doorka ay Soomaaliya leedahay inay qaadato tan ugu ma jirto taas marka waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed inay horta saas u fahamto qodobkan kalood ka dhawaajisay oo dawladda Qatar lagu eedeeyay waxaa ka hadlay maamulka Puntland ka hadlay madaxweynahooda Dani wargeyskana waa dhegeensaday oo runtii VOA-da ayaan ka dhegeensaday kaliya marka waxa naga maqan waa codki safiirka Qatar iyo qofka shacabka ah qadariyiinta oo la tilmaamay in codkeedii la soo daayo ayaa taas ka dhiman laakiin dawladda Qatar in ninkan uu jiro waa cadeysay balse xukuumadda Qatar looma xaglin karo ama looma tiirin kari laakiin way cadda Soomaaliya way caddahay oo saas iyagu waa u sheegeen laakiin waxaa ka sii wanaagsan inaan cod ka dhigaysan sida habka oo warku isu saaran taasna Puntland waxay ku baaqday in arintaas baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka oo arintaas oo baaro waana arin dhici karta sida ay Imaaraadku iyo Qatar ay isaga soo horjeedaan iyo xaaladda Soomaaliya sida ay involved ugu yihiin waa arin markaas la malaysan karo haddana wargeyskaas dalka Mareykanka ka soo baxa oo muujiyay laakiin waxaa sii dhici karta in dana kale oo siyaasadeed laga leeyahay oo wargeyska naftiisa oo leeyahay haddana siyaasadeed iyo ujeedooyin kuwa aan arkayna ka fog sidaa darteed marka in guddi loo qabto arintaas la baaro oo markaas ay noqoto mid arintaas hadda meeshay joogto laga sii wado oo meel dadka Soomaaliyeed ay wada fahmi karaan baaristu ay gaarsiiso saasaan aad iyo aad anigu u soo dhaweynaya maadaama deegaankii iyo maamulkii Puntland oo codsaday dawladda Soomaaliyana ay waajib ku tahay dalkeeda waxay ku soo xadgudba inay ka dhulan gaarto oo arintaas ma taqaanaa meel la yaqaan la gaarsiiyo aan aniga aad iyo aad u soo dhaweeyay anagu ku dheeraanay ugu dambeyn waxaad inta badan marka dib loo eego oraahdaada iyo hadallada aad bulshada la wadaagto kamida in aad xitaa dawladda dhexe askari soo ahayd oo dhinaca amniga aad ama il dheer maaragtay u leedahay talooyinka aad bixinayso oo ku aadan sidii mar kale aanu u dhici lahayn wixii shalay dhacay iyo waayihii aan ka soo gudubnay dhibaatooyinkii dhacayo oo mas'uuliyiin badan ka laaftay marka laga soo tago shacabka oo iyagu had iyo jeer kuwa u nugul dhibaatooyinka dhacaya kamida shacabku
markii dhibaatada dawladda loo geysto oo dawladdii madaxda aheeday oo ama gobolka Banaadir ba aan dhaxno dhacdadan oo kale ay ka dhacdo shacabku waa handadaya waa la handada maxaa yeelay madaxdoodii ayaa loo geystay faldimbiyeed argagaxisanimo halkaas marka shacabka Soomaaliyeed niyad jab ayaa ku dhacay shacabkuna sidiisaba in niyadda loo dhiso waxay ku xiran tahay dawladoodu inay argagixisada tilaab ka qaado aniga marka waxaan aaminsanahay argagixisada in tilaab laga qaadi karo sideedana argagixisada qofkii la jira waa inaad hal dhinac isla marisaa ciddii argagixisada ka soo horjeedana waa inay saaxiib ka noqotaa saasa guul looga gaari karaa inaad halkan oo kula fadhiyo qofkii argagixisada ahay ee dawlad isla matalaysiin oo aad martaqaana aad isla sheekaysiin oo aadan cadow isku ahayna oo hadduu ka taga kadib oo ku soo maleego khatar saas ma lagu gaari ma kara waa in qofka argagixisada oo cadowgaahi meesha joogto waa inuu na imaan karo hadduu yimaadna waa inaad tilaab ka qaade sida uu asuguba kaaga qaadayo waa meesha uu buushka dhihi jiray ama raac argagixisada ama annagana soo raac mar allaala markii 11 September ay dhacday tilaabti uu qaadaa waxay ahayd annaga cidina la jiraysana hanala jirto cidi argagixisada la jiraysana hala jirto waa meeshan ka dhahay xaq iyo baadil islama soo karaan waa sideedaba dagaalku waa inuu adiga dhabkaaya laakiin waa inaadan u muuqan inaad film beena jilayso waa inaadan u muuqan waa inay wuxuu dhabkaayiin oo aad argagixisa kugu tahay tilaab aad ka qaado aniga marka waxaan aaminsanahay in tilaab laga qaadi karo maxaa yeelay argagixisadu meeshay wax ka soo dirayso in lagu weeraray u baahan tahay argagixisadu waxay u baahan tahay hadii Muqdisho ay ka diyaarinaysan hadii Muqdisho inay meesha ay adiga aad waa inay meeshaad wax ka maamulee seefta Soomaa waa ina seef ka dhigtaa waa fududahana in seef laga dhigo maxaa yeelay dhuumaalay ku joogaan ku turbaanay ku joogaan waxaas marka waxaa la rabaa tilaabti ay ku carari lahaayeen oo meesha kula noolaa weeyay Muqdisho inuu ku noolaado hadii gobolkii waa inayna suurtagal ka dhacayso hadda taasi waa dhuumaal waay dhuumaasha waxay ku tahay markuu hadda meesha soo galay xukuma imaanaa soo fahmaysid farsamo adeegsan farsamadaasna waa farsamo argagixisanimo iyo maafiyanimo meeshay ka soo gali karto iyo jidkay ku imaan karto inaad xirtaa laga raba qofku ku socdaa Soomaa qofku ku socda waa in xuuraankaaga uu soo qabanayo haddii kale oo xuuraanka adahayna waaba inuu marka hore hawo ayna jirino tilaabaha aad qaadaysa laga baqaayo inaasha hadda shacabku waxay u arkeen dhagaxaanta la dhigo wadooyinka iyo carrada lagu tuuro meelaha laga soo galo magaalada waxa soo dhan ma ahan wax lagu sugay waxa way cadawga gurigaan uu ku jiriya tilaab aad ka qaado meesha wax u fadhiyaan aad tagto waa inaad soo maxabiyo aad soo qabataa cid allaala cid macaamil lana waa inay ka baqdaa in la xiraayo ama la dilaayo markay la macaamisho taasa laga rabaa aad u mahad